ninkan noloshiisa oo dhan waxa uu ku qaatay iibinta keega. Ugu dambayn wuu urursaday $2 milyan si uu guri u gato. Laakiin waxa uu la yaabay markii uu arkay in gurigii uu gatay uu u qaab ekaa keega, halka cabirkiisu uu ahaa keliya 0.8 mitir 2 jibaaran. Habeen kasta albaabka ayuu isku xirxiraa si uu u seexdo. Ayaan kadib dhabarka ayuu ka xanuunsaday rafaadkaas awgiis. Markii uu daalay oo niyad jabay, wuxuu go'aansaday in uu dib u dhiso guriga. Wuxuu qaatay mishiinka alxanka ee eedadiis, wuxuuna suuqa ka soo gatay biro adag wuuna isku alxaamay qaab faraym ah. Wuxuu soo gatay almuuniyam tayo sare leh oo uu ku daboolay derbiyada. Daaqado dhaadheer oo dhulka ilaa saqafka gaadha ayuu ka sameeyey si ay iftiin iyo qurux u keenaan. Derbiga hoose wuxuu ku wareejiyey shay suuf jilicsan ah, hoostana wuu goglay furaash adag si uu ugu seexdo si fiican, wuxuuna geeska ku dhejiyey bir ilaalin ah si dabayshu u waxyeelayn. Sariirta madaxeeda wuxuu ku sameeyey khaanad weyn oo almuuniyam uu ka sameeyey wuxuuna u kala xiray 3 qaybood. Qaybta sare wuxuu geliyey bustayaasha iyo birkimaha. Qaybta dhexe dharka dhaadheer ee shaqada. Qaybta hoosena ee sariirta madaxeeda wuxuu ku sameeyey sokoti si uu kombiyuutarka iyo moobeelka ugu dabaysto. Hal abuurkiisa keegana uu ugu farshaxameeyo. Markuu daalo wuxuu cunaa keega tijaabada ah ee aan dhammaystirnayn. Derbiga bannaan wuxuu sudhay sawirro caalami ah. Wuxuuna derbiga dhinacaan qoday 50 sentimitir si uu ugu soo bandhigo noocyada keegiisa uu sameeyey. Dhinaca kale oo derbiga ka mid ah wuxuu ka dhigay meel sidii hool ah. Halkaas ayuu ku rakibay kurshiin leh sinki iyo mashiinka cunto karinta. Muraayad weyn ayuu ku dhejiyey derbiga si uu isugu fiirsho maalin walba. Waxaa kale oo uu halkaas ku qariyey taangiga biyaha wuxuuna ku rakibay saxanka musqusha. Shaawarka qubayska ayuu u sameeyey si uu si raaxo leh isugu nadiifiyo. Derbi kala qaybinaya ayuu u yeelay suuliga iyo jikada si aysa cunada iyo urta suuliga isku dhex gelin. Madadaalo ahaan wuxuu ku rakibay derbiga shaashad TV ah si uu filimada uga daawado. Albaabkii wuxuu u beddelay armaajo kor u laablaabanaysa oo uu ku kaydiyo sharabaadada iyo nigisyada. Markii uu dhammeeyey dib u dhiska gurigiisii qaabka keega ahaa wuxuu noqday meel uu ku helo wax kasta, nasasho, shaqo, cunto iyo madadaalo. Bal ka waran adiga fikradan ma keeni lahayd? Muuqaalka leeg saar leejan ama leejamad.